gudoomiyaha gobolka Sool mudane Mustafa Cabdi Shiine ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xarunta maamulka gobolka Sool waxa uu ku magacaabay gudida qabanqaabada 18 May ee gobolka Sool sidoo gudidaasi ku booriyay inay sida ugu dhaqsaha badan la u dirdirgeliyaan hawlaha u diyaar garowga munaasabada 25 guuradii ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay gooni-goosadka Jamhuuriyadda Soomaaliland 25 guuradii madaxbannaanida qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudidaas oo ka koobnaan doonta suduuyaasha iyo xubno golaha deegaanka caasimada Laascaanood oo noqon doona gudida leh qabanqaabada iyo diyaarinta qaabka u dhacayso xuska maalinta May qaabka u dhacaysa marka gudoomiyaha gobolka Sool oo gudoomiyaha hawaya fulinta gobolka suduuha naaw ururka haweenka suduuha diinta iyo qaafta suduuha cadaaladda suduuha beeraha suduuha ciyaaraha suduuha caafimaadka suduuha waxbarashada suduuha samafalka suduuha dowlista iyo hawada suduuha dib hawlaha guud iyo suduuha arrimaha bulshada dhanka kale gudoomiyaha gobolka Sool wuxuu kulan ballaaran wuxuu ku qaabilay xafiiskiisa wafdi ballaaran oo ka socda dalkaasi Finland oo hogaaminayso xildhibaan ka tirsan degmada Turku ee dalkaasi Finland